سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله. ذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشينا ياسمين لجعليه halkaad igala socotaan waa youtube channelkayga ياسمين لجعليه official. soo dhawaada walaalayaal asxaabtayda sharafta leh igu xiran waxaan idinku soo dhaweynayaa gacmo furan asxaabtayga cusubnaa sidoo kaleenta waxaan leeyahay soo dhawaada gambar ayaa idin dhigayaa soo dhawaada youtube channelkayga waa walaashiina Yasmiin Lajacley oo idin soo dhaweynaysa oo rabta inaad ka mid noqotaan asxaabtayda waxaan idin leeyahay soo dhawaada in noqda saaxiibaday gambaleelka furta subscribe daha gambaleelka furta share na daha like daha si asxaabtiina ee kalanta idin la wadaagaan caawo waxaan idin wadaa asxaabta sharafta leh barnaamijkaygu wuxuu ahaa hiil hooyo horta waxaan ka hadli jiray hooyooyinka dhibaataysan iyo ilmahooda ayaan ka hadli jiray laakiin caawo waxa ay maraysaa amba aan rabaa inaan ka hadlo waa aabe ayaan rabaa caawo inaan ka hadlo aabe Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Sheikh Faisal oo degan wadanka America dalka America ayaa waxa dacweysay gabadhiisa subhanallah qurbaha waxaana lagu arkeenin malahan walaalayaal dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa lagu la kulmay qurbaha bal halkee lagu arkay cunug waalidkiisa dacweynaya subhanallah aabahaas wuxuu u ahaa aaba kaligiis ah ilmihiisa korsanaya diisa jirta 14 sano gabar jirta oo asiga dhalay ayaa dacweysay hooyay ku dacweysay Amerikaanka ama gaalada wadanka uu joogo ay ku dacweysay way dacweysay waxay dhahday just bahaysan adigu ilmahan markay ay iskuulka dhiganayaan baa waxa loogu maskaxda loogu soo shubayaa go'aanka idinkaas kale canaadsi iyo waxaas ma jiro waxa waalidkiina haday dhibaatadaas idin ku hayaan waa idin caawinayna noo soo sheega iyo been iyo turufa iyo balaayo bay ilmaha ka soo buuxinayaan laakiin si cunugii toosan oo jidka toosan haasta ama cunugii aqli leh waalidkiisa ma dacweynayo oo ma qaadanayaana dadka kale waxa ay ku soo dhaxeen ma qaadanayo laakiin ilmaha isku mid maahan oo ilaahay isku mid kama dhigin cunugtaasna aabaheed waa ay xirtay way dacweysay aabaheeda waxay dhahday aabahay Samboyela aabihii waa la soo orday waa la xiray oo hadda jeelkii buu dhex yaalaa aabihii miskiinka ahaa ilmihiisii kalenta oo hooyo la'aan ahna guriga ayay u joogaan subhanallah maxaa filanaysiin iyaduna waa la qaatay ilmihii asiga mar hadii la xiray oo gabadhiina la watay de kuwa kalentana iyagan ilaaha u maqan ilaahay waxaan ka baryayaa inaysan wadanin aysan ku darsanin laakiin gaaladan waxay yaqaanaan mudan waxay yaqaanaan ilmaha hadii mid la qaato kuwa kalentana way dulman yihiin oo waa la qaadanaya laakiin ilaahay aabahaas waxaan ugu baryayaa in uu iyaga xabsiga gacantooda ka soo baxa oo ilmihiisi kalenta haysta taasi waaba socotabe ilaahay haduu soo hadeynayna waa gooniyo gurigoodii ku soo noqonayso oo ileeda aniga aabahay waa ka qaldanaayo insha Allah ilaahay taas ha ka soo inay tiraahdo aabahay waan ka qaldanaay oo dhibaatada ana sameeyay ma ahayn saan beehed ee ka soo noqota ilaahay ha ka soo laakiin aaba Faisal Sheikh Faisal wuxuu ahaa sheekh aad iyo aad u wanaagsan oo fiican siday sheegayaan dadka deriska kale ah wuxuu ahaa aaba aad iyo aad u wanaagsan hooyo hadii ay meesha ka maqan tahay aabihii uu ku qasban yahay inuu asiga wixii dhan uu sameeysta because ilmihiisii asiga uu ahaa hooyo aabo oo hooyadii waa ay ka dhimatay ilaahay ha u naxariisto xaskiisii ilmaha u dhashay way ka dhimatay oo 7 caruur hayeen asiga soo korsaday asiga la soo dhaco la soo dhintay maantana gabadhiisa oo asiga dhalay dhigiisii dhacankiisa baa inay umad kale ku dacweysay ayaa la xiray oo hadda jeelka ayuu yaalaa la dhahay maskiinka subhanallah ilmihiisii kalentana guriga joogaan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa asxaabta sharafta leh Soomaaliyeed
in ilmahaas kaleenta aada u hiilisiin, aada garabkooda taagnaatiin oo isan la wadanin. insha allah sidaas ayaan rajaynayaa oo aabahaas ilmihiisii usoo noqdaa xornimadiisa oo helaa. gabadhaasne waxaan rajaynayaa inay aabaheeda usoo noqotaa ay dhahdaa been bay ahayd waxaasoo dhan. ilaahay qalbigeeda ha kusoo rido oo ilaahay qalbigeeda ha usoo toosiyo, qulubteeda ilaahay ha usoo toosiyo. ilmahan ummadan kaleenta waxay usoo sheegaan ayay qaadanayaan. waa ilmaha dhan ma ahan oo isku mid ma ahan. cunugaad soo korisay oo kusoo dhibaatootay oo maanta ummad kale kuugu dacweeyey ku dhahay aabahay baa saas yeela ama hooyaday baa saas yeeshay oo aabahii la xiray iyadiina la qaatay, ilmihii kaleentan cidla joogaan oo ay rabaan hadday rabaan beri ka maalin inay usoo noqdaan. ilaahay waxaan ku baryayaa aabahaas dhibaataysan inuu ilaahay xabsiga kasoo bixiyaa, in uu ilmihiisii dib ugu soo noqdaa oo hooyii aaba siga u ahay cid kaleento maanta u maqan aabahaas aanan ahayn ma lahan. ilmo yaryar waaye, ilmihiisii timaha u samaysan jiray, asiga kan kale timaha u jara, kan timaha u sameey. aaba oo hooyii aaba isku waayo labo isku darsaday oo hooyadoodii maanta ma joogto. labada dhinac haddee maanta ahaa lahayn waxbayba ahaa lahayd. aaba keligiis ayuu ahaayo hooyadii ilaahay baa ka jeclaaday. ilmihii waa ilmo rajo ah. marka insha allah ilmahaas qalbigooda iyagana dhibaatada ka muuqato, dhibaatada haysato oo murugada haysato oo aabahoodii ka walwalsan oo leh aabaheena naga maqan, aabaheena nagala xiray oo Soomaali usoo galayso kasii baxaysa. insha allah ilaahay waxaan ugu rajaynayaa asxaabta sharafta leh idinkana uu soo duceeya in uu ilmihiisii dib ugu soo noqda Sheekh Faysal oo ilmihiisii la midoobaa oo xabsiga ilaahay kasoo saaraa. gabadhiisii dacweysana ilaahay dib ugu soo celiyaayo ay garataa dee waalidka xaqa uu leeyahay. subxaanallah, xaqa waalidka uu leeyahay haddii ay gabadhaasi garan lahayd maanta ay aqooni lahayd maanta aabaheeda iska dhaaf ummad kale ay ku dacweysaaye hadalkuma aysan soo celiseen. dhibaatada oo lasoo maray oo u sameynaya xaqa uu ku leeyahay kaliya haddii ogaa lahayd waxaas ma samayseen. laakiinse iyada waa ilmo yar, haddana ummad baa kaleenta dhagaha ugu soo shubto. wixii guriga aada ilmahaaga ugu shubatid waa laga shubaya, waxbaa lagu soo shubaya. laakiin dadaala soomaaliyay, dadaala. maxaa nagula baahan yahay waa inaan dadaalnaa. cunugaagii markuu iskuulka ka imaadaa la fadhiiso miiska oo waxa uu maanta ay kusoo shubeen ka shub, adigana ka shub, iyagana ha kusoo shubaa. dee maskaxda cunugu wuu yar yahay oo koriimadiisa cunuga markay socoto maskaxdiisa aada u yar tahay. waxa ay kusoo shubaan adigana ka shub oo ka meyr ka dhaq guriga marka uu imaado. cunugii weydii maanta waxaa soo samaysay, maanta maxaa dhacay, maanta maxaa lagu dhahay oo yaa kula sheekaystay, macalinkee maanta laheyd, macalinkee maanta kula soo kulmay, maxaa lagala hadlay, maxay ku yiraahdeen, maxaa dhacay. dee la saaxiib cunugaaga, saaxiib la noqo cunugaaga. soo fadhiisana homeworkaa ka shaqaynaynaa, maanta maxaa lagu soo dhigay, maanta maxaa iskuulkii ka dhacay. haddii aad tiraahdo cunugaaga saaxiib aada la noqoto oo wax walba uu jecel yahay inaad u samaysid, wax walba oo xunne aad ka celisid oo aada u sheegtid, insha allah ma qaadan doono hadalka kaleento oo hadalka waalidkiisa ayuu qaadan doonaa. ilmihii iyagana waxaa loogu baahan yahay waalidkooda inay dhageystaan, waalidkooda inay adeecaan, waalidkooda inay respect siiyaan. waalidkooda ilmo waxaa jira iyagoo yaryar waalidkooda saaxiib leh oo fahmaya, laakiin ilmihii isku mid ma ahan. laakiin adiga ka samayso oo waalidka hooyo iyo aaba anaga ayaa nagula baahan yahay awlaadeena sida aan saaxiib ula noqon lahayn oo aan kaga shubi lahayn wixii lagu soo shubo. subax walba oo iskuulka aada waxbay kusoo shubayaan, cusub bay usoo sharaxayaan, kusoo shubayaan maskaxdooda. ka shub adigana marka uu soo fadhiista miiska oo iskuulka imaado cunteeyo, relax waxay loo nasto cunugii miiska la soo fadhiisto. aaba ama hooyo labada waalidba ama waalidkii awoodo markaas oo fursad haya miiska in lala fadhiisto cunugii la yiraahdo maanta maxaa haysaa, soo daadi wixii maanta ka dhacay. cunugu wuu kuu sheegayaayo waa cunug yaroo daacad waayo, maanta waxaa saan baa ka dhacday, intaa dhacday saana ahayd. ka shub marka waxaas ku dhe waxaas ma jiraan, been bay sheegayaan. waalidkii iyo cunugii inay isku diraan ay rabaan. waa balaayada ilmihii iyo waalidkooda isku dirayso. subxaan allah. ilaahu adaa weyne waaxidahe, adaa weyne waaxida. ilaahu wadankeena nabada inoogu dhig. ilaahu awlaadeena dhibaatadan ku jirta rabbiyo raxmaano kaga hiili ummadan oo garab taagan oo beenta garabka ku siinayso.
waxaan rajaynayaa aaba Faysal Sheekh Faysal inuu ilmihiisii dib ugu soo noqdo xabsigaasna ilaahay ka soo bixiyo oo ka badbaadiyo asxaabtayda sharafta leh oo ila joogto idinkana waxaa idinka codsanayaa inaad u duceysaan aabahaas oo xabsiga ilaahay ka soo saaro ilmihiisii kaleentana oo usoo noqdo gabadhiisii fidnada ka dhalatana meeshana ay dib ugu soo noqoto ay tiraahdaa aabahay aniga ka qaldanaayo waxaas ma jirto saan ma ahan insha Allah taas ayaan u rajaynayaa u duceeya ducada ee wax walba way caawisaa faatixada umara aabahaas inuu ilaahay jeelka ka soo saaro ducada waa ay soo baxdaa qofka markii daacad ah loogu duceeyo insha Allah anigana waa u duceey doonaa asxaabtayda sharafta la joogtana u duceeya aabahaas waa aaba kaligiisa ilmihiisa korsanaya insha Allah waxaan rajayn doonaa asxaabtayda sharafta leh in aad u soo duceysaan oo Soomaalida wadankaas joogtana ay garabkiisa noqdaan oo xabsiga sida ugu soo baxi lahaa insha Allah aabahaas ay ku dadaalaan oo umad garab taagan uu helaa Sheekh Faysal sheekh fiican ayuu ahaa oo ilmihiisii dib ugu soo noqda insha Allah ilmahaas ilaahay ma kasi inay gacan kalanta ay galaan ilaahay ha kasi inuu aabahood dib ugu soo noqdo gabadhaasna fidnoodina inay ilaahay idana dib ugu soo celiyo oo aabaheedii iyo aabihii hooyadii aabaha u ahaa insha Allah ay dhahdaa bembe aheedo saas bay aheed wax walba ee qulubteeda ilaahay u soo jilciyaa oo qulubteeda ilaahay u soo dabciyaa oo aabaheedii noqota midii garabkiisa taagnaa insha Allah sidaas ayaan rajaynaynaa Soomaaliya ayaan isku tiirsanaano waa walaashiina Yaasmiin Jeclay oo idin leh hal iska warqabo hal is ogaado hal isku tiirsanaado Soomaali waa Soomaali ilmaheena dhibaataysan insha Allah waxaan rajayn doonaa insha Allah in aan caawino oo garabkooda taagnaana waa walaashiina Yaasmiin Jeclay oo idin leh salaamu calaykum ورحمة الله